السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo waa nisbada karam videoga ugu dambeeya waxaan ka hadalnay inaadan ka baqin horumarka horumarka of course waxa waaye isbedel qof kasto markii ay rabto inay isbedel cusub suubiso cabsi aa soo galayso which is normal emotion waaye qof kasta inay cabsato it's good way ku fiican tahay inay cabsatid because markaa cabsatid waa fikiraysaa si fiicana u xisaabtamaysaa horumarkan aadan ka baqin ka hadalnay waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo inaan this is like hadartaan waqtiga la joogo December aakhirkeeda sanad cusub aa bilaabanayo mawlid nabawi hadartaan oo ahaay sanadka cusub oo kalendaariyada islaamka also wuu bilowday waqti fiican waaye qofka inay naftiisa la fadhiisato ee wax oo reflection la dhaho ay suubiso reflection waxa waaye like inaa sanadka hadda aa soo dhaaftay 12 bil aa soo noolaatay aa soo dhammaysay reflection u suubiso like review camal dib u fiiri 12kaas bil oo maxaa qabsatay maxaa waaye wax isbedelka aa suubisay maxaa faa'iidaysay maxaa jecleed inaad suubisid ama maxeeriyadaada ku jirtay ama niyadaada ku jirtay oo aa samey weysay maxaa u sababay inaa samey weysay it's really important inaa qortid sanadkan maxaan suubiye horto iyo maxaa ii toosi waaye and then aad fiirsid maxay ugu toosi waayeen waxaaba ii toosi waayeen is it dadaal daro dhinacayga miya is it cabsi miya ma u sabab inaa horumarkaas aan gaari waaye iyo waxyaabihii aan jeclaay inaan gaari waaye mise waa dadaalay wax kasta waa dhinacayga laga rabo waa qabta laakiin just ma ii qorneen sanadkaanito and then markaas hadday ahayd situationka noosaas ahayd then waxaa suubinaysaa waxyaabihii ku toosi waayeen oo sanadkan maybe ku qorneen nasiibkaaga calaf maadan ku lahayn waxyaabas inay ku toosi waayaan and then waxaa la dhahaa goals inay subsid for next year sanadka soo socdo maxaa jeceshahay inaa qabatid ama maxaa ka qaban kartaa differently it's really good time sanadka aakhirkiisa inaa subisid review sanadkii maxaa soo dhaafay wixii sanadkii lasoo dhaafay maxaa faa'iideynay maxaa noo toosi waaye iyo maxaa rajaynaynaa sanadka oo cusub oo hadda bilaabanayo iyo rajadaasayta markaasayta also maxaa ka qaban kartaa stepska aa qaadanaysid maxay tahay because waa dhihi karaa okay waxaa rabaa inaa soo xajiyo masalan for example xajkeena aadan jeclaa sanadka oo 2019ka laakiin xajka wuxuu u baahan yahay preparation wax la dhaho inaa isku diyaariyo waaye inaa dhinac dhaqaalaha financial inaa isku diyaariyo muxramkii aan wada lahaa inaan diyaariyo inaa yacni waxa ku talagalo ilmahayga masalan yaa ilaalihaaya mise waa wadanaa shaqadayda waxaas dhan inaa waxa waaye planning aan suubiyo planningskas haddaan hadda bilaabin before I know June ama July miya xajka marka tahay July waaye August waaye I believe way imaanaysaa anoo weli anoo waxba suubinin inaa planning suubisid maxaa ka qaban lahayd by one inaa waqti suubisid bisha janaayo waxaan suubinaa qadwadaanayda february qadwadaanaan suubinaa maarso qadwadaanaan suubinaa si oo adoo organized by the time oo agosta la gaaro oo isdiyaarisa waxaagana ku toosan yihiin ay ahaato waxaan rabaa ina maybe next few videos inaan ka hadlo since ay sanadka aakhirkiis tahay sidee naftaada aa u bedeli kartaa waxyaabo badanaa jirto dhinacyaalo badan oo qofka naftiisa ay ka bedeli karto since ay sanad cusub oo bilaabanayo waxaan rabnaa inaan ku bilaabno insha allah niyad fiican energy fiican iyo positivism waxa waaye inaa qofka nolosha u fiiriso il fiican oo inay rajo leh ma aha inaa sanadka loo bilaaday maalin kale waaye sanada soo noolaata alxamdulilah sanadka soo socda maxaa suubinaysaa oo different inaan ka hadalno aan fiirino waa intaas iyo nabadgelyo haddii aa su-aal qabtid ama aragta inaa nala wadaagtid sanadkii hore wixii horumarkii aa gaartay iyo waxyaabihii aa jecleed oo ku toosi waayeen iyo sidee u bedelaysaa sanadka soo socda maxaa ka qaban doontaa please hoos noogu soo qor si aan la socono anakane horumarkaaga waana kugu farxeynaa ilaahay kuu fududeeya waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu